Welcome again, guys. Meel walbaad joogtaan. Magacaygu waa Max. Soo garaacso dhawaataan cryptocurrency-ga iyo trading iyo mining investment. Asset income haddaad doonayso dakhli joogto ah. Cryptocurrency newskeeda iyo macluumaadkeeda haddaad doonayso waxyaabaha markaas kusoo kordhay everyday haddaad doonayso. Maanta waxaan doonayaa inaan la share gareeyo. Waxaan rabaa inaan ka hadlo why Bitcoin pricekiisu qiimihiisu hoos u dhacay. Kaasaan doonaya marka inaan la share gareeyo. 3 sababood ayaa reason ama sabab u ah in Bitcoin pricekiisu uu qiimihiisa hoos u dhaco. Sababta koowaad waxa waaye Mt. Gox oo biggest exchange in the world, iyo sababta labaad Bitcoin network advertising. Aan dhaho Google adskiisa advertisementka oo sidoo kale joojisay cryptocurrency-ga iyo sidoo kale ICO-yada initial offering-ka. Sababta saddexaad waxay tahay Chinese regulationkooda oo ayadana keentay maadaama 15 February ay ahayd ayagoo sabab u ahaayeen in price Bitcoin hoos u dhaco. Saddexdaas sabab ayaa jirto. Intaan gudubka ka hor haddii aad doonayso macluumaad badan oo ku ogaato cryptocurrency-ga iyo sidoo kale investment platform kaasoo aad dakhli ka samayn kartid haddii even xataa price Bitcoin uu qiimihiisa hoos u dhacay. Waxaad la soo xiriiri kartaa Facebook-gayga Maxay Fuja kaasoo aad u weydiin karto wax badan oo la xiriira cryptocurrency-ga iyo faa'iidooyinka markaas aad ka samayn kartid. Waxaa kaloo kamid ah even price Bitcoin hadduu qiimihiisa hoos u dhaco oo aad markaas ka faa'iidaysan kartid expert asset kaasoo dakhli joogto ah as a USD dollar account-kaaga toos automatic ugu soo dhacaya. Sidoo kale waqti xaadirkan idinla share gareynayo Bitcoin pricekiisa iyo alternative coin pricekiisa hoos u dhacay. Waxaan sameynaa maalin walba akoonka kusoo dhacayso as a US dollar. Maalintii waxaan helaa $5 minimum oo ugu yar oo aan gashan kartid waxay tahay $5 kaasoo maalintii $5 account-kaaga kusoo dhacay. Haddii $200 dhigato ama ku maalgashato expert asset maalintii $2 ayaa helaysaa 5 maalmood. Okay, waxaan soo noqonaa marka topic-geena ama mawduuceena aan soo noqon. Waxaan dhahay 3 sababood ayaa keentay in Bitcoin pricekiisu qiimihiisa hoos u dhaco. Maanta ujeedaan price Bitcoin inuu marayo 8,357. Sidoo kale waxaa kaloo kamid ah alternative coin oo Ethereum oo kale 610. Sidoo kale waxaa kaloo kamid ah Ripple oo 0.7 ah. Sidoo kale waxaa kaloo kamid ah Bitcoin Cash oo 947. Litecoin ayaa kamid ah 166. Waxaa kaloo kamid ah Cardano oo 0.1 ah. Marka price-ka every cryptocurrency pricekiisa hoos u dhacay. Bitcoin waa domination-ka markaasi ugu sareysa ama hooyada cryptocurrency-ga wuxuu maraa 3,357. Sababta koowaad waxaan dhahnay Mt. Gox. Mt. Gox waa biggest exchange in the world kaasoo marka lacag badan oo markaas 1 milyan muddo ka badan oo cash gareeyay kaasoo sabab u ah in Bitcoin pricekiisu hoos u dhaco. Jaarteen haddaan fiiriso Bitcoin price-kii iyo marxaladaha uu soo maray waa October, May uu kala price Bitcoin sare u kacay. Marka ugu dambeysay forever Bitcoin pricekiisa uu sare u kacay wuxuu gaaray 20,000 $20,000 ayuu gaaray kaasoo sabab u ah in price Bitcoin uu dhaco. Capitalization-ka marka la isku soo daro cryptocurrency oo dhan wuxuu gaaraa 332 bilyan ayuu gaaraa. Cryptocurrency capitalization-kooda ama market-kooda. Reason-ka labaad ama sababta labaad waxaan dhahnay waxaa sabab u ah Google adska oo joojisay cryptocurrency-ga advertisement-keeda xayeysiinteeda. Sidoo kale initial offering-ka ayaa markaas sabab u aaneyneysa big scams-ka oo scam la xiriira cryptocurrency oo scam ah
taasoo keentay dad badan markaas easily Google-ka isticmaalo ay arrintaasi u arkeen dib in lacag badan markaas ay ku ku waayeen shaqadaas u dacwoodeen taasoo marka sabab keentay in xayeysiinta lagu joojiyey kulama marka sidaas ay dhacdeen sababta keentay dadka Bitcoin dalbanaya inay aad hoos u dhacdo sababta saddexaad aan ku magacaabi karna waxaan dhihi karnaa in Bitcoin price-kiisu uu soo dhacay Chinese-ka oo February 14-ka ay ahayd maalinta celebration-kooda ay ugu warbidayeen maalinta qarankooda loo asteeyay taasoo marka dad badan oo investors ah oo Bitcoin markaas maalgashtay iyo big exchange oo markaas China ay leedahay iyo sidoo kale dad badan oo markaas investors oo Bitcoin maalgashtay oo market-ku ugu weyn oo China uu yahay markaas ayaga lacagtooda cash gareysteen si ay ugu dabaaldegaan maalintaasi oo ay tahay maalinta qarankooda astaankooda ay tahay oo 14 February taasoo marka keentay kulama ayaga ay cash gareysteen Bitcoin price-kiisa hoos u dhacay ayaga kaligood maahan Bitcoin baa joogo market-ku ku xiran yahay waxaa la dhahaa demand and supply kulama demand-iga dadka dalbanaya ay bataan Bitcoin-ka dalbanaya ay bataan Bitcoin price-kiisa ku kacay kulama ay dadka Bitcoin dalbanaya aad u yaraadaan Bitcoin price-kiisa hoos u dhacay الحقيقة كان هلا ماركت كتابي weli waxa waaye 8,350 dollar xaafila 2 days kadib price-kiisa laga yaabo in Bitcoin hadda saadalinta la sameynayo waxa soo socda inuu gaari doono 3,500 marka loo fiiriyo analytical analysis taas waxa waaye price-ka Bitcoin iyo cryptocurrency alternative-kooda sidoo isku malayn karo laakiin haddii aad doonayso inaad dakhli macluul joogto ah aad hesho adigoo markaasi price-ka Bitcoin aynan ku celinaynin ku xadidaynin waxaad uga faa'iidaysan kartaa expert asset oo this platform-kaana macluulba ku sameynaya faa'iido ayaga markaas isaga miska trade-ka macaasha soo saaraan exchange-yada waxay kula leeyihiin mining ayagaa qodaan waxyaabaha ay qodaan waxaa ka mid ah cryptocurrency-da Bitcoin-kuna ka mid ah Ethereum oo kale iyo Litecoin ay mining sameeyaan isla markaasi ay macaasha faa'iido ku sameeyaan maalintii percentage haddii xitaa price-ka Bitcoin uu yahay down account-kaaga 1% ayaa kusoo dhashay maalmood ayagoo markaas dad expert ah oo si fiican u yaqaano trader-ka iyo mining-ka labadaba marka loo eego anigu maalintii waxaan helaa each day maalin walba waxaan helaa $5 $5 ayaa helaa maalin walba kankii kusoo dhacda qodobka labaad xigtan waxaa waaye lacag ku yar aad doonayso markaas inaad maalgashato waa $1 oo percentage of maalintiiba $1 $1 dhigato $200 waaye sidoo kale $500 kuna waa $10 marka inta markaas adigu aad leedahay maalgashan kartaa ayaad markaasi awood u leedahay inaad maalgashato adigoo markaasi 1% maalintiiba helayo inta markaas aad dhigato boqolkiiba hal oo inta kor aad kusoo xisaab marka anigu waxaan dhigtay $350 meel balankeyga lacagta markaas anigu aan dhigtay each day $5 ayaa hela midda xigtana waxa waaye taas anad wadana bonus ayaan ka helaa oo la xiriira marka maalin waxa waaye wixii trade-ka sameeyo shanta maalmood oo percentage-kaaga ah 1% anigu aan helo $5 waxay u soo dhacdaa account-kan oo ah Profit Wallet kan waxa waaye mining hadii markaas lagu qodo midda xigta waxa waaye wallet-kan waxa waaye shanta maalmood marka ay account-kaaga soo dhacdo automatic waxa la soo wareejinaa wallet-kan la soo wareejinaa oo transfer cash wallet kan waxa waaye inta markaas aad dhigatay kaaga soo muuqan doonta intan waxa waaye haddii aad withdrawal aad samayso weli anigu withdrawal ma sameynin laakiin waxaan rajeynaa wiilka soo sameeyo withdrawal oo aad intusi doono insha allah isna waxa waaye haddii aad doonayso mar labaad inaad dhigato lacag markaasi aad ku iibsan kartid binary blank before waa inta aad soo dhigato okay
That's good answer. I don't know something guys meel baa joogtaan guys waxa waaye news markaas aan ugu talagalay inaad markaas ka faa'iidaystaan haddaad doonayso macluumaad badan oo la xiriira please waxaad isoo xiriiri kartaa facebookgayga max ifuja kaasoo aad dad macluumaad badan aad doonayso platform macluumaad badan doonaysa ayaa laga soo xiriiri kartid haddii aad tahay qof cusub please subscribe youtube channelkayga si aad macluumaad badan oo la xiriira cryptocurrency-ga aa hesho bye